maalintii shanaad ee u lahaa doorashooyinka madaxtooyada Somaliland oo u lahaa xisbiga wadani ayaa saaka magaalada Berbera taageerayaasha xisbiga wadani waxaa kala soo qayb galay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi Maxamed Cali iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbigaasi ee gobolka Saaxil. Taageerayaashan oo saaka si weyn u soo buuxdhaafiyay fagaaraha khayriyeedda ee magaalada Berbera waxaa kala hadlay mas'uuliyiinta xisbigaasi ee saaka warkacayay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi wadani Maxamed Cali waxaana ka mid ah hadaladii ay saaka u jeediyeen sida tan noqoto sharaftooda iyo quruxdoodii inay maanta taageeraan xisbiga wadani waayo dadkooda ku jirtaan ninka maanta u buuxaya ku soo noqonaya ee doonaya inuu maanta ka codka raadiyo magaalada Berberi waa ninkii iibiyey weeyii Berberi waa la iibiyey dekedani waa la iibiyey habeeni waa la iibiyey heer saaxiibu dadweynaha ku haasaawayn xusbiga kulmiye dalkan iyo dadkan baysadaa cunay xusbiga kulmiye farteedana ku imanay saaxiibu maanta waxaynu maraynaa wax yar baynu haray intii waraabiyaan maalintii wajhi sheegayay ee dadweynaha haalfiina ku tasbiixsaday yar baa uga hadlay 9 shay looga hadlay ayta kulmiye oo leeyahay cadaalad darrada ka qabo iskuulada ayaa dhamaantood la fasaxa halka waxa xaruntii ku dhaaftay boqoliyo konton xiisadood oo ay baranayaan baa ku dhaaftay taas waa cadaalad darrada koobaad dadaalka imaka leeyahay ka baahan yahay ee loo haray waxa weeyaan sida ay soo camirtaan meeshan ila hadda codkana soo camirtaan oo idinku soo hawshooday aan codkiina noqonin mid baaqda nidaamka aynu maanta wax ku dooranno ee dimuqraadiyadda waxay reer saaxiilow ina leedahay shacbiga ayaa awood leh macnaha shacbiga ayaa awood leh waxa laga soo horjeedaa inay ama koox ama laba nin ama wax la mid ama wax ka sii yarba ay tirada kaligeed lahaato marorsato war kuwii lahaa Muuse Biixi waa gees Muuse Biixi waa nin adag Muuse dadkiisu ku adag imsaada uu ku adag yahay shalay ku cararayo maxay qabaan shalay ku cararayo kuwii lahaa Muuse waa nin adag baan u baahanahay shalay ku cararayo maxay qabaan maxay shalay ku cararayo qabaan qaska iyo mushkiladu kama dhicin oo kaliya la asxaaro halkan Berbera aynu joogno ciyaalkii iskuulada gawaadhida ku soo gurteen markii ay dad niya ahaan u haya iyo mabda ahaan ula socdo maaha markay gawaadhidii ku soo qasbeen iyagii bay dhagax iyo shiid kula jeestay meel walba ayaan daradaas haysata reer Berberaad waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo waana idin mahadnaqayaa gaar ahaan iyo guud ahaanba sida aad u soo baxdeen ee aad u muujiseen inaad taageersan tihiin dalka in isbeddel ka dhaco ilaahay waxaan ka baryaynaa isbeddelkan raadinayno inuu inooga dhigo mid khayr qaba ilaahay isbeddel khayr qaba ha inooga dhigo mid faqriga inaga saara Allah inooga dhigo mid cadaalad darrada inaga saara Allah inooga dhigo mid sicir bararka inaga saara Allah inooga dhigo وياسين جامع علي تلفزيون عالمي قاعد بلوشة TV مقالة حبيت بربرة.